Sheikh Maxamed Rashiid Garowe oo madax u ah xarunta cilaajka magaalada Cabudwaaq ee Daarul Amal ayaa soo gabagabeeyay hawlihii shaqo ee uu joogay magaalada Cabudwaaq. Xarunta cilaajka ee Daarul Amal oo ah xarun lagu quraan saaro dadka isla markaana lagu dabiibo ayaa magaalada Cabudwaaq laga furay horaantii bishan aynu ku jirno kadib markii Sheikh Maxamed Rashiid Garowe oo isagu markii labaad socdaal ku soo gaaray magaalada Cabudwaaq uu ka hirgeliyay xaruntaasi waana xarun dadka lagu dabiibo. waa ka Sheikh Maxamed Rashiid Garowe oo ka waramaya xarunta Daarul Amal ee magaalada Cabudwaaq waxyaabaha ay qabato ee bulshadu ay ka faa'iideysteen. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waxaan ku sugannahay magaalada Cabudwaaq oo xarunta cilaajka ay ka furan tahay. Insha Allah biidhnilaahi ta'ala mana aha markii maaragtay koobaad aan nimid. kal hore hadda waan nimid oo maaragtay hotel Coffee ay xaruntu ay ka furayd. إلهي سبحانه وتعالى قد فرب بدن أيو إلهي مارته وعافماد وكسية كوا جني وهيستي أيو إلهي مارته وكجساري كوا سحرنا أيو إلهي مارته وسحر كي وكجبوري كوا حوج هذا يشقض هذا لو حستي بإلهي مارته وكعافية إن شاء الله بإذن الله تعالى قرآنكم مرة بمارته والدو إلهي وحوليه يقول هو للذين آمنوا هدى وشفاء مركا حرمته وحاي كفرنتها مجالات عبدوا مدة ماركتي نبيل يا شنية توم بريئة أي ماركتي فرنت هاي إن شاء الله بإذن الله تعالى وحن جعلها مانتا وماركتي تاريخ ويكون بيجنت هاي تضبية لبعتنكا بيشة ماركتي سدحات لبضة كونية لبعتنكا إن ماركتي سوق بجبينه حرمت العلاج كمجالات عبدوا كفر ريد إن شاء الله بإذن الله تعالى مدة كدبنا وحن جعلها هنا نماذنه وحرمتنا السيدة يا وقفرنت مجالات Cabudwaaq inay maaragtay uga furan tahay oo maaragtay culimada maaragtay aanu kaga tagnay sidii waan galiya dadka oo maaragtay warbixintana soo siiya insha Allah biidhnilaahi ta'ala waxaan jecelahay waqtigeeda inaan ku soo noqon doono ummadda dhammaan reer Cabudwaaq waxaan u rajaynaynaa caafimaad waxaan u rajaynaynaa maaragtay inuu Ilaahay u shaafiyo Ilaahay maaragtay caafimaad u siiyo wixii sixirka Ilaahay uu ka buriyo إن شاء الله بإذن الله تعالى وحنو كوا جهنم مجالات الله وأنو جعل لهاي بيش أفراد شمت هذا إن مارت يعني شغلي يهوش عن كبر لونه أنت أصليا مارت ومضى عن وشيجنا وحيابها حرمتو أي مارت أي كشة قيسو وحيابه هري عن وعوسا ورني هدي أي تاي مارت السحر بورين هدي أي تاي جن سارس هدي أي تاي مارت علاجين تا إيشا إيشنا وحيابها أودرن مارت اللي يسكون جلي أيه كمتهاي مركا إن شاء الله بإذن الله تعالى وحن دين رجينا عافمات هذا وبالله التوفيق. Sheikh Maxamed Rashiid Garowe ayaa xarumo kula magaalooyinka Gaalkacyo, Garowe, Baydhabo, Kismaayo, Baardheere, Muqdisho, Nairobi iyo sidoo kale Mombasa waxaana uu soo gaaray horaantii bishan magaalada Cabudwaaq isagoo maanta soo gabagabeeyay hawlihii cilaajka iyo quraan saarka ee bulshada reer Cabudwaaq u hayay waxaana uu sheegay inuu ku wajahan yahay magaalada Luuq ee gobolkaasi Gedo halkaasi oo xarun kale ay ku taalo isagoo bulshada reer Cabudwaaq markaas uga mahadceliyay sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen magaalada. Sheikh Maxamed Rashiid Garowe ayaa markiisii labaad uu soo gaaray magaalada Cabudwaaq iyadoo horaantii sanadkii hore sidan oo kale uu ku soo gaaray magaalada Cabudwaaq qaatanna uu sheegay inay dib ugu soo laaban doonaan magaalada Cabudwaaq halkaasoo mar kale ay ka bilaabi doonaan hawlaha cilaajka iyo quraan saarka. Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Cabudwaaq.